wasiirada dowladda federaalka ka socda wasiir ku-xigeenada kuwa stateka xildhibaanada dhammaan gudoomiyaalka saaxiibka xasan gudoomiye liibaan iyo ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaha dhinaca amniga shabeellada hoose iyo taliyaha qaybta lixdanaad iyo taliyaha booliiska koonfur galbeed dhammaantoodii iyo marti sharafta waxaan idinku salaamay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan ka tegay saaxiibadayda hadda wejigooda ii muuqdo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer state aad ay umahadsan yihiin shaqo wacan ay qabteen maaragtay dhammaantoodii waa salaamayaa. waxaa kale la rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo saaxiibadayda khaaskii ah cabdullaahi xaaji iyo cabdiqaadir calagaab ayagana maaragtay dad aad u dadaalaya dhammaantood waa salaaman yihiin iyo tiimka kooxdii ex jinawkey hadda loo bixiyey kooxda koonfur galbeed iyo wariyaasha dhammaantood waa salaamaya. salaantaas kadib hadalkayga ma dheer insha allah waxaan rabaa hambalyo iyo dardaaran yar iyo mahad celin. ugu horeyn waxaan rabaa saaxiibkayga liibaan doctor liibaan aada saaxiib u nahay waa nin aada u dadaalayo waa nin dhalinyaro ah nin aqoon-yahan ah asi iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa walaashayda maaragtay zahra iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaragtay amniga dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo ayay idin tahay maanta annagana maaragtay farxad ayay noo tahay inaan kasoo qayb galno maaragtay caleemisaarka gudoomiyaha degmada baraawo. liibaan waa ku hambalyaynaya saaxiib waxaan ku leeyahay insha allah kulley waa lagu ammaanay maaragtay abku ab ayaa lagu ammaanay maaragtay waa hees waa u jeedeen gudoomiye liibaan hadhawaaw aamiga hadhawaaw waa la kaari aamiga hadhawaaw insha allah adiga tiimkaas shaqaysaa lasinku fale dhankaas waxaa weeyaan hambalyadii waaye oo maaragtay gudoomiye liibaan caleemisaarkiisa aan u hambalyaynayo. gudoomiye garabkaaga allah galo ilaahay kula garab galo shaqada culus lagu dhiibin allah kuu fududeeyo. waxaa kale raba halkan inaan ugu baaqo maaragtay dad badan ayaa jiro dadka qaar ay u malaynayaan baraawo waxyaalo badan ay ka sheegayaan ayaa waxaa raba halkan inaan ku beeniyo. baraawo waa laisku qabsadaa iyo waa laisku jijiidaa iyo saa u imaanay wax isjiidaya ma arkin annaga. baraawo waxaan ku aragnay amnigaan ku aragnay baraawo waxaan ku aragnay dad oo maaragtay akhlaaq leh oo maaragtay sharaf leh ixtiraam leh. waxaa maaragtay kugu daliil ah inay dad ixtiraam leh inay yihiin doorashada say u dhacday taasaa kugu daliil ah. marka baraawo waxyaalo badan dadaa waxaa laga yaaba inay ka tawiyaan bicture aanan jirin. maanta waxaan rabaa inaan halkan ku caddeeyo baraawo meeshii loo soo dalxiisayo waaye magaaladii amnigi waaye hadda kadib in baraawo aan kugu imaana rajaynaya insha allah. dadka reer baraawona inay naqdaan hormuudka koonfur galbeed inay naqdaan dadka ayaga ay hogaamiyaan taas waa ammaantiina waa leedihiin. intaas waxaa weeyaan reer baraawo iyo maaragtay gudoomiyeeda iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa weeyaan. tan labaad waxaan rabaa inaan halkan ugu maaragtay ugu mahad celiyo guddiga doorashooyinka kaalintay ka qaateen iyo maaragtay waxay sameeyeen iyo dardargelinta doorashada say u dhacday iyo nabadda ku dhacday iyo maaragtay iyo sida maaragtay doorashada ay cadaalad ay ugu dhacday. marka waa u mahad celina shaqo wacan ay qabteen oo ugu horeeyo saaxiibkayga gudoomiye yuusuf baafe iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa. gudoomiye hadaladiisa waxaa ka mid ah waxaan jeclaan lahaa kuraasta baylawo ku dambaysay inaan daliilkeena jeclaan lahaa yidhi marka waxay ogsinaysaa in baraawo maaragtay dadka dhan ay leeyihiin yaa idinka dhiga maaragtay meeshaad joogtaan yaa idinka soo raray meeshaan idinkeena oo doorashooyinka dhan meeshaan lagu qaban lahaa. marka gudoomiye adigii tiimkaaga waa idin mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin sharafta iyo kaalinta maaragtay idinka aad ka qaateen doorashada. waxaan rabaa marka gabagabadii iyo gunaanadkii inaan kusoo gabagabeeyo ciidamada amniga ciidamada maaragtay qeybaheeda kala duwan oo ciidamada qalabka sida amazon ay ku jiraan dhammaantooda taliyaashii hortayda fadhiyo. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo doorashadiisay u bilaawatay 26 kursi ayaa meeshaan lagu doortay. ma arkin wax dhibaato ah ma arkin maaragtay wax isqabsi ah ma arkin wax amni dara ah ma arkin maaragtay wax aanan ka ahayn nimankii nabadiidka maalintii ugu horeysay oo waxyaalo ay soo tuureen
intaasna maaragtay waxay ahayd naflacaariya iska ahaayeen laakiin ciidamada geesiyaasha ah ayaa diiday in maaragtay qalqalgeliyaan doorashada aaday u maasan yihiin taliyaasha hortayda taagan iyo ciidamada maaragtay oo banaanka ku maqan dhammaantood waxaan idin leeyahay guulaysta guul ayaad maaragtay aad leedihiin ammaan ayaad mudan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajar siiyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina ayaad difaacaysaan taliyaashiina oo maaragtay inta habeen iyo har ayagana maaragtay horgelinta ay ku mashquulsan yihiin oo maxaa amnigi ciidamada ay ciidanka qalabka sida qeybaheeda kala duwan dhammaantooda ay la shaqaysay ciidamada qalabka sida ayagana way mahadsan yihiin waxaan idin leeyahay dowladnimada ayaana deeqo qof kastaba maaragtay waajib ayaa saaran gurigaaga ayaa waajib kaa saaran oo dalkaaga waajib kaa saaran magaaladaada waajib kaa saaran qof kastaba waajibkaas inuu ka shaqeeyo amnigiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo waajibna saaran waaye dhammaantiina ciidamadayna sharafta leh geesiyaasha ah aad iyo aad ay u mahadsan yihiin annagana reer koonfur galbeed haddaan nahay mar kastaba hormuud ayaan nahay kasoo bilaaw haddii maaragtay haddii golaha maaragtay deegaanada la dooranayo hadday tahay statekii ugu horeeyey doorashooyinka waxaan nahay statekii ugu horeeyey maaragtay doorasho bilaaway haddana deegaan doorashada labaad bilaaway ayaan nahay haddana waxaan nagan doonaa stateka ugu horeeyey oo doorashada soo gebagabayn doona insha allah number 1 gali doona marka mar kastaba aad ugu mahadsan yahay waxaan rabaa salaam khaasa iyo mahadcelin oo khaasa inaan halkan aan ugu diro madaxweynahayna sharafta leh cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka dhabeeyey suldaankii iyo odaygii maaragtay koonfur galbeed inuu yahay nabadoonkii soomaali inuu yahay asigaa ka dhabeeyey doorashadana maaragtay say ku socota iyo maaragtay heshiiskii lagu heshiiyey in la dardargeliyo madaxweynaha asigaa ka dhabeeyey albaab kastana oo soo xirmi lahaa asigaa maaragtay furay madaxweynaha aad buu u mahadsan yahay ummadan ayuu badbaadiyey soomaalidan ayuu badbaadiyey sharaf ayaa leedahay karaamo ayaa leedahay ma aha wax magac aan ku raadinayna ma aha balse waxaan sheegaynaa xaqiiqada dhabta oo ilaahay nala ogyahay ayaan sheegaynaa madaxweynaha iyo tiimka la shaqaynaya dowladda koonfur galbeed oo mar kastaba ka shaqaynaysa hormuudka maaragtay ee soomaalinimada wadannimada dadnimada iyo karaamada ka shaqaynaysa ammaan ayay leeyihiin ammaan ayay mudan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay kuwa isku duuban oo maaragtay ummadda badbaadiyo allah ka dhigaya leeyahay reer koonfur galbeed aad baad u mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu